bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan iyo sura badna la socotaan wanaagsan wacan ayaanu dilanahay qaybtanna waxaanu ku sii ambaqaadeynaa qaybtii kale ee waraysigii barnaamijka gaarka oo la yeelanay aqoon-yahan deeqo ducaale oo qurbaha ku sugan isla markaana aanu wax ka weydiinanay arrimo dhowra waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena ayaan idin soo gudbin doonaa ka bogasho wacan ayaanu dilanahay ma aaminsana ilaa hadda waxay ku riyoonaysaa oo dreamkeedu iyo riyadeedu ay Soomaaliya inay dawlad ka jirto laakiin dhagayso ninkaas hadda wuxuu ka hadlay professorkaasan ku sheegaya waxa la nin guri muraayada ku jirta Axmed Turturo miro Kenya nafsadeeda isagu Soomaaliya maagaya Soomaaliya ka fiican Kenya boqolkiiba boqol ninka Kenyaanka hadda tira lacag ban ku sinay walaalka madaxiisa kan wallahi wuu Kenya hadda miro Soomaaliya iko matata ka jirta matatu waa maxay problem ku yahay lacag la'aan waa gartay miro gobolka hadii la yiraahdo chatkiisna waa la meelaynaya ka soo go'a Kenya Soomaaliya soo raaca wallahi way soo aqbalayaan ilaa aqalooda cawaan ah way aqbalayaan shan gaari hatta diyaarada hatta maaha shan gaari baa ku filan oo wiigi u soo gala uruga Kenyatta intuu ka kacaan oo waliba askartiisa jidka u fadhiistaan bay gubayaan maalin cad waa gartay waa meesha kaliya ee Kenya ay aaminsan yihiin lacag qadiyad lahayn ma garanaysaa waa gartay marka yuu ku cayn ummadda Soomaaliyeed Puntland baa la saaxiibay Heblow baa la saaxiibay yuu ku cayn farmaajo iyo dawladda dawlad fidna u dhalato fidna ka talinaysa ama dhagor u geysanaysa shacabka Kenya ma aha laakiin sida iyagu hadda maleeshiyadu abaabulayaan oo dhibaato u kicinayaan hadda isku dayaan dawladda Soomaaliya ka badan bay samayn karaan iyagoo dhan baa iko matata ah iyagoo dhan baa kuna beesa ah iyagoo dhan baa lacag ma jirto dhibaato jirta hadda askiisu ka yiri dhaqaalii Kenya hoos u dhacay oo miro gobolkii baan ugu kacsan oo lacag raba hadda gobolka kugu kacsan hadda adigu fidna aloogaysid oo fidna aad ku kicinaysid ummadda Soomaaliyeed ogow adiguna qabaa'il bad ka samaysan tahay kala jeen iyo Masai iyo Warda iyo bay ka samaysan yihiin ma garanaysaa waa qoomiyada isku yimi oo waliba annaga isku diin baan iyagu kala af weeyaan waa gartay isla Soomaaliga dhaxdiisa isku fahmin oo luqadda Ingiriiska ayaa central language ah maadaama Ingiriiskii gumaystay Kenyatta waa waxa weeye ninku kuya atrere bay ku hadlaan atrere language atrere kuyadu ku hadla waayahay Soomaali soo hel afgooniya ku hadla isku af baanahay anagu isku diin baanahay wada iswada fahmaya oo aanay jirin luqad kale oo macnaha u dhaxayso ama lagu dhaxdhaxaadinayo ama central language waa ma jirto marka Soomaaliya dadkoodu waa dad very sensitive ah waa dad cudurka qabiilka la gelinayo waa dad 30 sano burbursana waxa marka waxa leedahay markii la waayay wax lagu kala qaybiyo oo meel markay isugu mid ka noqdeen qabiilka baaqi loogu dayay Abdisamad oo Soomaaliya hadda isu tagaan Afrika oo dhan bay qabsan karaan that much bay Soomaalidu ay strong personality dad fiican xadaarad leh oo wanaagsan weeyo Soomaaliya boqortooyada Afrika Soomaaliya noqonaysa boqortooyada Afrika oo dhan xukumaysa ayay noqonaysaa sida berber lagu tijaabiyay shisheeye u baabi'inayaan hadda Kenyaanka ku aynaya ee Soomaalida dhagarta u geysanaya dhibaatada u geysanaya waa nin la ilaaliyo British gahawa ayaa u jooga Ingiriiska militarigiisa baa ilaa hadda ilaaliya Maxamed Siyaad buu ahaa ninkii dawladnimada u keenay oo u doodaya xorriyadooda hal la siiyo waa xisbigii maamul markii laga maamuli jiray Muqdisho laga qoodin jiray inta bariiska la siiyo jeebkan lacag lagu shubi jiray yes hadda right now British gahawa markii coronavirus ku dhacay loo daabulayay Ingiriiska lagu celinayo shirkadaha u waaweyn
Kenya Ingiriis baa iskale. That's why Uhuru Kenyatta wuxuu afkiisa ka dhamaan waayay dawladda Soomaaliya maxay u tageen ICJ annaga dhexdeena ka dhamisa isaga Jarmanka midowga Afrika now qaramada midoobay inuu iska dhaadhicin karo oo Ingiriisku ku caawinayo ogyahay waxaas dawladeena waa fariido ilaahay aqligeena maskaxda ha u daayo way ogyihiin way garteen waxaasay maxkamadda marka waa gartay ninkan afkiisa waxa ka bixi weyday xal hoosaad ayaan ku dhamaysanana xal hoosaad laguma dhamay karo because la geel wax gunta la geliyo waa ka weeyeen gahaba British gahawa ba ilaaliya British gahawa soldiers ba Kenya fadhiya oo ilaaliya nabadgelyadooda waxba iskama celin karaan shanino Soomaaliya ku filan laakiin bootada waxa weey xagga Yurubiyaanka ka socota waa lagu adeeganaya isla Kenyaanka laftirkooda waa lagu adeega oo kambaniga shaaha yaa iskale kambaniga bunka yaa iskale kambaniyaasha hoteelada waaweyn England baa laga leeyahay walaalo runtaan ku waa gartay ma garatay hindida Kenya East Kenyan hindida gumaysan jiray Soomaalida ka kicisay hindida ayaa gumaysan jiray Kenyaati oo Soomaalidu ka kiciso dadkan waa dad madow walaalahaya daafa ma garatay maanta hindidii gumaysan jirtay Sawaaxiliga ma joogan Soomaalida ka fujisay marka waa sababta Soomaalida ganacsiga badan ugu leeyihiin Nairobi Kenya iyo Mombasa iyo meel kale oo Kenya ba kamid 91 92 markan Kenya nimi weelka eeyga cuntada lagu siiyo ayaa shaqaalaha qofka hindiga ee businesska haysta shaqaalaha Kenya u dhashay weelka eeygiisa cuntada ku siiyo dadka Afrikaanka ee u shaqeynaya Kenyaatiga uu ku siin jiray Soomaalida karbaashtay oo diiday Soomaalida karbaashtay oo yiri ninkan ku shaqeynaya naagtan ku shaqeynaysa waa Afrikaan dhulka iyada iskale adoo Hindiya oo Hindiyan ama samayn kartid sida oo laga fujiyo oo Kenyaanka business-tigii bartay oo Kenyaanka wax walba bartay oo business-yo u furtay oo isla shaqeysteen oo ay walaalo waa sababta muwaadiniinta Kenyaanka ugu shaqeeyaan Soomaalida yes haddana shacabka Kenya problemku maaha shacabka Kenya waa dad fiican Soomaalida laakiin siyaasiyiin baa jirto oo reer galbeedka u adeegaya Britain iyo hindida oo kale yes kuwaas isku diraya kuwaas rabay inay isku diraan waana cabsi ay ka qabaan Soomaaliya haday adkaato quwad yeelato cabsi waayo waxa ka go'aya dan uguma jirto dad badan oo maxay qaramada midoobay kamida dad badan oo maxay horta Afrikaanka inaga hadda inay lama jiraan qoladan la dhahayo maxay Amazon Soomaaliya inay ka baxaan weeyaan dawladda Soomaalida waxaan ka waaninayaa dadka shisheeyaha oo qaramada midoobay inay la saaxiibaan waxa weeye waxaan hadda Ethiopia lagu samaynayo wax ka badan baa dawladaha Afrikaanka lagu sameynaya waxa weeye divided and conquer waa kala jajabi kala quru kala waxee kala hadda eraygan ku sheegayaan ku dhahay buuga siyaasiyiinta reer galbeedka yaqaana waa taatiko iyo maxay ay ula dhaqmaan dawladaha Afrikaanka oo waxa hadda Ethiopia wuxuu dhahay Soomaaliya ku sameynana waa waxa hadda Ethiopia lagu sameeyay marka hadawnimo yaynoo qaadin ani dawladda Soomaalida waxaan oran lahaa haydin la shaqeeyaan qaramada midoobay laakiin dad special oo shaqaalaha oo daba socda waxay sameynayaan iyo wax kasta because ninku shaqaale ma keensan karo wadanka uga shaqeeya si aanay ajaanibta bridge ugu gudbin sayda ajaanibku bridge uga gudbin oo ayna u dareemin waxay doonaan inay sameyn karaan waa in hareeraha laga galo oo indha kulul la tuso sida marka loo eeriyay ninka la yiraahdo Ziyamu ku-xigeenkii ergiga midowga Afrika Soomaaliya dhowr maalmood ka hor waxa la rabay ninka markuu iimanayay in contract laga saxiixo wuxuu sameyn karaa inkastoo mandate-ka uu ku yimid mid ka midowga Afrika uu ahaa yes every wadan haddii anigu haddaan company u shaqo tagayo waxa jira company-ga sharci u degsan oo ana dhaafi karay bal hadda ninkan markuu wadanka yimid inuu la shiri karin dad mucaarad dawladda ku ah inuu shacabka Soomaaliyeed dhibaato gaarsiin karin inuu jaajuusi karin shacabka Soomaaliyeed inuu war aan dawladdu ogeyn gudbin karin oo aan consultation una dawladdi la sameeyno dawladdi uusan la tashan meesha dawladda keentay iskama iman walaalo
meesha fooda maaha meesha dastuur baa ka jira meesha sharci baa ka jira meesha dawlad baa ka jirta uu shaqaynayo shacab Soomaaliyeed buu shaqaynaya wadan Soomaaliyeed buu joogaa Soomaaliya dawladdu inay markiiba tiraado waa lagu cayrinaya marka hore waa inay ka fiirsadaan oo ninkan ku yiraahdaan okay saxiix signature-ka hadda xadgudubka uu sameeyo warqaduhu saxiixay baa la geynaya ama maxay hay'adda qaramada ururka Afrika la geynaya qaramada midoobe la geynaya waa in laga saxiixo waxa uu samayn karo wuxuusan samayn karin waa inuu signature-kiisa ku dhufto magaciisa hadduu uusan comfortable ku ahayn ama ku faraxsanayn waxa uu saxiixay waa in la yiraahdo ka soo fakar ama ku qanacsanayn iska noqo waaka shacabka Soomaaliyeed inuunan dhibaato u geysan karin waxaan dawladdu ogeyn inuu ka hadli karin macaaridka dawladda inuu xiriir la samayn karin lacag faalsay iyo xoolo faalsay waxa oo dhibaataynaya dawladda iyo jirtaanka Soomaaliyeed inuu samayn karin waxa soo dhan marka uu horeyso qofka ajnabiga ah waa inaad meel iska marisid sharci celinaya inuusan ku xadgudbi karin wadaniyiinta Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed ama militariga Soomaaliyeed ama waxyaalaha Soomaaliyeed anigu aad waxaan ugu faraxsanahay nizaa kambaniga nizaa ina iyaga ayaa xuduudda Soomaaliyeed ay ku jirtaa waa inay dad badan ay shaqeeyaan oo wixii ajnabi oo dhan dabagal oo wixii ajnabi oo dhan ka warkeena yes waa in meesha uu jiro xuduud dawladeed hay'adda nisa oo wax walba og hay'adda nisa anigu hal xoojiyaan oran lahaa meel kasta hal xoojiyo wadanka oo dhan lagu fidiyo wadanka oo dhan lagu fidiyo gobol walba hal geeyo hay'adda nisa waxa weeye difaaca dalka weeyaan difaaca dawladda weeyaan difaaca shacabka weeyaan difaaca dastuurka inoo yaal weeyaan ma garanaysaa militarigu wixii lagu soo duulo weeyaan wixii lagu soo duulo laakiin difaaca hay'ada important ah jira wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda socdaalka wixii socdaala oo dhan dhaqdhaqaaqa wadanka cunto xataa fiiri nimanka keenaya walaal lix diyaaradood iska keenaya airportka wadanka waa in la ogaado waxa soo galay haddii cunto sunad shacabkeena loo keeno haddii dawayn dhacay la keeno haddii dhibaato laynoo keeno waa inaan iska qabanno walaal taas wadankeena in loola dhaqmo inuu foodo yahay wadankeenu ma wanaagsana walaalo ma wanaagsana anaga dadka iyaga qurbaha waan ku faraxsanahay dawladdeeda waana garab taaganahay ma sha Allah tabarakallah Soomaali wanaagsan oo xalaal way jirtaa Soomaali somewhere else oo dadka loo shaqeeyo way jirtaa oo meel kale ka yimiyo soo shaqatay oo jeebabka buuxsanaya ma garanaysaa kuwaasna Ilaahay ha soo hadeeyo Soomaalinimada iyo walaalnimada ha tuso ma garanaysaa laakiin waxaan u hambaliyaynayaa Maxamed qorqorka أحمد عبد كاري مدحوينها يقش أحمد عبد كاري قرقر وفريد ما شاء الله إنه كاير عندها هذا فريد جا وحل ربي قبل كيسين لبابيو ما قرنسا قولي سبان ليه هاي all the time مرول هو قولي سبان ليه ما قرنسا إن لفت قرن سيدو كله إن محي هاي تي قدوميها محي تبرلمانك إن كان كلو هدير تكو قولي استي maxay ahayd baarlamaanka oo maxkamadiina inooga qayb galay isagana waan u hambaliyaynayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar walba waan u duceeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u duceeyay kaligay ma waayo isagu maanta 4 sano xataa haduu helo uu tagaya laakiin qaranimada Soomaaliyeed tagimayso jiritaanka Soomaaliyeed tagimayso quwadda Soomaaliyeed tagimayso ma garanaysaa war Soomaaliyeed walaalahayga Soomaaliyeed waxaan leeyahay war shakhsi aad nacdeen wadankiina ha u baabi'inina war shakhsi aydan maaragtay waad dhihi kartaa hebel ma jeceli laakiin wadankaygan jecel dalkaygan jecel dadkaygan jecel waana caawinaya waxaan u qaban karana waan u qabanaya because qofkani bari u tagaya Soomaalinimada la iibinaysid oo suuqa la taaganta walaalayaal oo joojiya wadamada shisheeyaad ku yaacaysan oo ixtiraamisan joojiya dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa nin kasta oo Soomaaliya oo somewhere else ka yimi inay dabagalaan oo soo ogaadaan anaga yay mas'uuliyad u shacabka Soomaaliyeed masaakinta mas'uul uga dhigin nin caada qaata waa gartay nin caada qaata oo qurbihiiba ka soo daalo waxba ka qaban waayay ama dawladda shisheeye soo shaqaaleeyeen waa in la ogaado jaamacadu ka soo baxay waa in la ogaado wuxuu ku fiican yahay waa in la ogaado fiisiskiisa waa in dib loo raaco
وإلا سوء قاعد إنه كريمنال يقف تنبي وتمكن كل سوء قلي هدي وطن كان لقى شقالين ولا لو وحالة يبها الأيدي المدة عشان إن عادتي ما باتشوا من قرن الصح صح waxaa raba gacan bira dawladdu inay ku qabato wadanka oo wax kasta ay soo ogaadaan oo qofka mas'uul ummadda Soomaaliyeed looga dhigayo Soomaali xalaal uu noqdo Soomaali xalaal ah oo wadaniya waynu noqdo qofka masaakiinta Soomaaliyeed looga dhigayo ilmaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed gayiga Soomaaliyeed qaaradda Soomaaliyeed qofka mas'uul looga dhigayo wayn dawladdu ay soo ogaato qofkaas muxuu backgroundkiisa muxuu yahay fikradiisu maxay tahay maskaxdiisu maxay tahay muxuu sameeyaa cilmigiisu intee u gaarsiisan yahay walaalo nina hadii ay mas'uul hada qadiyadiisu maxay tahay nina waxna qorin waxna aqriyin oo tacliin lahayn oo siyaasad waxba ka garanay hadii ummadda Soomaaliyeed xillo oo haddana shishay u adeeg ku sii darsaday oo haddana jeeb buuxsi ku sii darsaday oo haddana shishay ku sii bitay waxa ku filan qasarka halka ka dhisan aada iskale bangigaana aada iskale soo baabi'i wadanka waa gartay laakiin qofku weynu jeegaro la sii wadankiisa u goyn karaa ضمير وينو ليهي ومديسة وينو كنحيو نحريس وينو كجرت قلبي ليسا نحريس وينو كجرت وايهي مامو هو ينك الصوماليات عرورت الصوماليات انت كليدة انت تمرت الدرن انت اكولين كرا وينو يهي ولا الله اكولين كرا او عوقبان كرا لكن انك شقايسانا يو سي حضايا او سي دليا او بمبوين سوقضا يو هبوتن كنت سوقليا قبيا او اولولينيا naxariiskaasi mala ilaahay anaga qabto waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay ku mahadsantahay inta aad siisay waqtiga walaal aad bad ugu mahadsantahay waayahay daawadayaal qaybtana ayaan intaan ku soo abmeeraynaa waad ku mahadsantihiin daawashada wacan iyo kabagashada barnaamijkeenan gaarka ee xaalada dhowra ummadda Soomaaliyeed ugu aftirinay iyadoo ay marti ku ahayd aqoonyahan siyaasi Soomaaliyeed qad ducalo qurbaha ku sugan